الله ملاي مقلا ملاي مقلا ما يمقليدان ما يمقليسان هلو 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 اصحابتا فيديو كان ايشار قرايه شيرت ايغو قبط شيرت ايغو قبطه هلو 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 وايد سلام يا اصحابتا يسي ودا شير قرايه مهما waxaa jirto cajiiba oo Soomaalidu inay wada yaqaanaan uma maleynaayo dad bay gaar u tahay dadkaas dadka ma aragtay aan anigu ka soo jeedo maamadu waxa la yiri run aan la sheegin ma ahanay rati dameerka raad qurxoon run aan la sheegin ma ahanay rati dameerka raad qurxoon saa la socotaan bashalay waxaan ku soo qoray Facebook-gayga waan iska daayay inaan ka hadlo ii sheeg arrimo hadii wax dhacaan hadii ma aragtay wax qaldan jiraan hadii ma aragtay dulmi jiro waan ka gaabsaday inaan iska daayo ayaan go'aansaday mar hore dameer iyo nin wadana dayma iga deeqdo waa anigi lahaa waxba BK ha ii soo dhigdhiginina luuqa dadka ii soo diraayay oo ma aragtay ayagu marka ujeedadooda ka hadlo BK waxaan idin sheegayaa aniga wax badan aan social media ka hadlay wax badan aan arrimo aniga i quseeyo ama problemi aniga ila soo dirsay aan ka hadlay wixii markii aad aragto inay waxba ka soo naas cadaaneen ama aan waxba iska bedelaynin ama hadii aad dulmi ka hadasho dad lagu haayo ama adugu lagu dulminaayo inay Soomaalidu sidiisu u yaala tahay markaan ogaaday family-gayga ay ma aragtay dhowr mar ila hadleen oo igu dhaheen inta dulmiga waa nacabta waa ku ognahay laakiin qof la yaqaan tahay dadku si qaldan ay ku arkayaan wallahi waayaan dambe inaan iska gaabsadaan go'aansaday go'aanka ma aragtay familkaygana tala aan ka qaatay go'aan aan gaaran uu ahay laakiin hal mid aan maanta soo kicisay waxa la ii soo diray video muuqaal la ii soo diray hadda aan idin soo share gareey oo YouTube-ka ku jiro waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inta aan la dejin in aad inta aan laga saarin in aad degsataan oo ifbaari u degsado muuqaalkaas waa waraysi wiil ayaa la waraysanayaa waa Nairobi nin wari ah waraysanaayo muuqaalkaas markii la ii soo diro wiilka la waraysanaayo aniga naftirkayga magac dhabay oo meeshii isoo galiyay arinta la waraysanayo soo dhexgeliyay ani ahaan waa wax mar hore dhacay oo hadda aniga arrinta ma taagnayn laakiin sheeko ku keenay Soomaaliyay muuqaalka markaan daawaday waxa ii soo baxday in aan wax ay Soomaalidu ama Kenya ha joogeen oo xog ogaal ayagu hasii ahaadaanba ama Kenya ha joogeen ama dibadda ha joogeen wax ay Soomaalidu wada og tahay oo aysan ka hadlin dulmi ay Soomaalidu wada og tahay oo aysan ka hadlin oo aysan ka dacwin inuu jiro waxaan wax sii soconaya ay tahay markaan arkay damiirkaygu siin waayay inaan ka aamuso maadaama aniga magacaygana meesha ku jiro oo arrin hadda ka hor dhacday oo aniga igu dhacday oo ninka sheekeynay walaalayaalow
aniga 2014 Nairobi tagay waa markii ugu horreysay Afrika aado 3 bilood aan dhalanaa 3 bilood wiilkayga dalmar ah 3 bilood uu jiray waa marka aan Nairobi tagaayo oo aan Dubai inta taga hadana xamar aan sii tagi doono 2014 show ayaa meeshaas ma aragtay ka dhagsaday Nairobi wiilal dhalinyaro ah oo walaalahay ah oo walaalaheen ah oo reer kilinka shanaad ah oo laakiin Kenya jooga Kenya degan dhalinyarada oo OLNF ayaa isoo raadiso fariin iyo soo farto tiri waa inaan farxiyo kulana inta aysan showga aysan dhagsan ama aysan qaban qaabsan maxay igala kulmaayaan markaan ahayna waxa la raalli ahada waxay kugu haystaan ninkii ahaan jiray kilinka shanaad madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar barnaamijyo uu leeyahay ayaad ka heestay marka inaad la kulanto waay waxaan iri ma intaas ay ugu haystaan ha hadda anigu weligay ma caayinaan ku iri hees caayana ma qaadin marka ayagana ani isma naqaano waxaan kala kulmaaya ma aqaano adigu arintii loo sheegay gabar saasay tiriya leeyri way soo raadiyeen waxay dhahan ama inala kulmaysaa waa may showga ka kansalayna okay anigu is abaabulay qarash isgaliyay oo siiska meesha la dhahayo ayaan tagay oo booliiska wiilal kale oo ayagana meesha degan oo qaarkood suju yihiin qaarkoodna CID hina ama aragtay la ii keenay oo isla familkooda wiilashan kale isku wada family yihiin nimankaas ay caawinayay meesha hoolkan soo qabsaday meesha oo CISkan tagay waxaan soo qabsaday ciidan badan aan dalbaday si aan difaac u galo showgina inaan dhigta iga go'an tahay adigu inaan nimankaas rag ah ay caawiyay iyo wiil CID iyo ah markaan soo abaabulon showgi hoolka soo qabsadayo wax walba aan soo qabsaday way ogaadeen inaan ma aragtay iga go'antaa showga inaan dhigto ayagana inaan la kulma aan rabin waxna kama sameynaan taagnaa ka bacdi waxay sameeyeen wiilashi waxay u tageen magacaas Isaxa Hebelow Xaaji Yusuf Xaaji ninka MB-ga ah isliye u tageen waxay dhaheen gabar joogta magaaladan fanaanad ah waana qof maarta dagaal lagu jirto anaga dadka cadawgeena ah u heestaa heesa anaga nala ku dulminaya qaadaa show way u timid nala kulanaan dhahna way diiday showgaas dagaal ka dhici doono showgaas inaad aas safety ahaan dadaan leen doona ayadana dad ay wadataa waa ina kansashaa adigu showgaygi 5 galabnimo ala kansalay 5 galabnimo wax aan qaban kara male ciidan wax u sheegi kara male dad ma aragtay lama hadli karo ma dhigay show waa kansalmay showgi sidii ku kansalmay exactly sida BK ku dhacday wiilashi ayaga ahaa waxaan go'aansaday inaan baxoon Dubai ka bacdina xamar laga soo celiyo wax ugu dhac waa maqalnay iska soo gudub waxaan iri Dubai aan tagaa waa imaana inta aanan bixin way isi soo aruursadeen haddana 30 ay ka yareen way yimaadeen waxay dheen farxiyoy adigana waa madax adag tahay annaguna kaamana xishoon gabar la sheeynaa tahay oo mul ah Soomaalidu marka qabiilay ma aragta qabiilka waxa la yiraahday wax isku ahaashaa Soomaalidu isku xeeriyaani adigu waxay dhaheen farxiyoy ina xataa ehelnahay waa ogaanay hooyada curadkeeda inuu ma aragtay familkeena yahay waa la ceeboobay raalli ahaw waxaan ka rabnaa inaadan bixin adoo Nairobi show ka dhigan waxaan ku iri walaalayaal waday saas tahay markii hore aad qasaariseen oo fanaan marka ugu horeyso hadii show laga kansala marka la ogtihiin in ma aragta dadka ay niyad jabayaan sidoo hore u noqoneen waxaan ku iri ma iga deysaan maya okay maxaa ii sameyn kartaan maxaad igu caawin kartaan waxay dheen anagu qarashan kugu caawinay qarashki ka baxay kuma celin karnaa inaan ku soo camirno oo show ku galno aan kugu caawinayna waan ku fasaxna dhigo adiga dhalinyaro badan aan la tashay oo aniga ay caawinayso ehel iyo qaraabo ah iska dhigay ideen waa dhagsaday 300 qof soo gashay because waa show fashilmay adigu wiilasha ka bacdo asii baranayo waa wada hadalnayo markastaan aan aragtay kaftami jirno intii ay weerarka ugu hayeen xataa dhowr mar la kaftamo dhahay walaalayaalo aniga meel cidlaha igala qaadeen meel cidlaha iga dulminaysiin timihiinuna isku gees uma xirmaan aniga dadka joogay Minneapolis oo aan lafti idinka jaalidiina xagga joogto ayaa igu tiri waan israacno waa heshiino waxa soo dhamaaday kaala farxiyo kilinka dawlad deegaanka u hees marka aan waxaan ku haystay inaad hal dhinac wada tihiin marka idinkana hadda saana ileediin maya walaal way ku qaldan mid kastaba cilad buu ii sheegtay farxiyo dad gumaysi ku jiraan anaga ninkaas waa qiyaanoole wadanka dadka jooga Itoobiya waa la dhibaateeyaa anaga hooyooyinkeen walaalaheen ma soo arki karno meeshaanan maaragtay soo dooranay marka anaga waxaan naga go'an fanaanka Soomaaliyeed waa inuu naga xishoodaa maadaama jabhad dagaal ku jirta aan nahay in aad cadawgeena u heestaan
ma rabno intaasaan kugu haysanay hadday saastaan ku dhahay waa lay qaldee dhexdiina dambe iguma arkaysaane waa idinka dhex baxayaa labadiina dhinacba idinkana weliga idinma heesin idinmana heesaayo ayagana dibdib uguma heesaayo intaas amaan ku heli karaa yeesay dheheen adigu wiilasha cabaaran kaftan xataa waxaan ku eri idinka inaa xamar tagtaan iyo rajo kama qabtaan yaa idinka dadka meeshaan ma aragta u sheeganaaye waxay dhaheen walaal saas ma ahna qalad naga fahmin qabiil ma aragta inaad noo aragto ma rabno wiilashii dhalinyaro badan aan isdhex galnay oo isbaranay wiilashaas waxaa ka mid ah Yurub oo loo yaqaan Hooya Cabdifataax Jarmal oo jooga Germany ninka la yiraahdo Yurub hadda jigjig inuu joogaan jeclahay Cabdifataaxna wuxuu joogaa Cabdifataax Jarmal wuxuu joogaa Canada sheekada waa la soo dhaafay 2014kii ahayd waxaa aniga iga dambeysay marka fanaan kasta oo wax ka tirsanayaan Nairobi markuu yimaado in uu ayaga arko fanaaniin badan baa iga dambeysay hodan Cabdiraxmaan waati ayada laga kasalay rabay oo hees ku qaaday ilaa heshiisay ka bacay showga dhigtay Yurub Kenya waati iska laabatay jiq uga dhigeen dalmar waa kii hadda tagay dalmar kulay meel kale oo marmaray walaalkiisna meesha wax buu ka yahay adigu wiilasha dhalinyarada ah ee jabhada waxaa lagu yaqaanay ay fanaanka ayaga ay xarashku u hayaan oo dambiyo naga galay ay leeyihiin inay ugaarsadaan taasna waa loogu daraabayo aniga naftirkaygu qiil baan ku siiyay oo waxaan iri waxaad ugaarsanaysan waa fanaaniin idinka dambi idinka gashay waa la gartay sheekadii sida isaga ahayd waaga Axmed Rashiid ma joogin 2014kii Axmed Rashiid ay imaaday Axmed Rashiid waa Soomaali haddana Kenyaan ah waa nin shaqo meesha u jooga howlo kale iyo loo ogimaday inuu wadankaas magaaladaas amnigeeda ka shaqeeyo oo wixii ciyaalkii ma aragtay dadka tooreeda galgalinayay shaqadaas Axmed Rashiid meesha u yimid ilaahay wuxuu qadaray 2017kii aan ku laabtay Nairobi markaan tagay show waxaan rabay New Year 2017 inaan ka tumo 2017 aan New Year inaan ka tumo waxaan maqlay marka intaanan bixin in uu u socday Nairobi ilka casi hadalkayga si fiican u dhageystay New Year oo rabaha leegu yiri anigu sidaydaba fanaaniinta inaan ka wareegsadaan jeclaan noloshayda fanaan show kama dib dhagsan aanon ilka casi waxba la hadlin oo waxba weydiin marka la ii sheegay inuu New Year rabo gaban ka dhahay 10kii December aan dhagsaday hooyaday iyo wiilkaygana waan waday showgii markaan saa u dhagsaday Axmed Rashiidna waa la sheegay akhbaartiisa Axmed Rashiidna u tag iska wargali inuu amnigaaga habeenka showga uu sugo Axmed Rashiid aan u tagay intaan bashowga dhicin waxaan ku iri aboowe saasa jirto okay waa yura baay soo dhawow showgaaga dhagso garabkaagan taaganahay showgiyaan dhagsaday showgi markaan dhagsaday isla wiilashi ayaa soo raadiyay waa alla balama waa ii yimideen waxay dhaheen farxiyo waxaan kugu nimid haye haddana ma iskeentay inaan dhahay waxay dhaheen waxaan kugu nimid waxaan maqalnay inaadan Nairobi showba u imaano familkaaga aad u timid hooyada iyo cunugaaga kula socdeen oo arrin family aad u timid oo showba u imaan dalmar iyo waxa isku dhacsanaa ilka case hadaa xusuusataan inuu dalmar lacag ku soo diro kugu dhaliyay inaad show dhigato hool asugu ku kireeyay si aad ilka case u baloogto waxaan ku yiraahdaa dhageysta walaalayaal dan kale leedihiin meeshaan ina ii sheegataan rabtaan hadda ka horna waa ii sheegateen social media soo ma gelin idin ma dhaleecayn waxyaabo badan baan xeerinayay waxaan ku iri arintaas ma jirto dalmarna isma maqlin hoolna ii ma kireyn dalmar ilka casan dhexdooda ima deeqda ayaga laba nin raga ah walaalayaal maxay taa sheekadan awadan asaga nugu yiri dhaheen waxaan ku iri dad xataa idin ku dhaho ma soo aadaysiin maxaa laba fanaan dhexdooda idinka galay haddaadan qabyaalad iyo xumaan wadinina nimay waxaan ku iri mid kale ilka cas xamar waa la kaftamay waxaan ku iri ilka cas xamar u socdaan maqle ma ka baqaay miyahan ku iri hadda idinka ii kiin soo diray anna inaan xamar aan uga hormaro oo aan revenge sameeyon ka aarsado way kaceen madax ciidamada iga saareen ma yeedhin farxiyo wili qabyaalad inaan noo fahamto ma rabno haday saa tahay aadan sheekaas bari ka tahay oo showgayguna waa 10ka December aan dartiisan uga baaqday New Year raalli ah way dhahan waa iga tageen Axmed Rashiid aan ku laabtay marka ilaa meel lagaaga awood badan yahay xoogay hadda ka horna lagu jiljalay waa cabsahe Axmed Rashiid waxaan ku iri Axmed Rashiid wiilashan walaalaheena inay ma aragtay adan qashadana laga yaabay arintaydu waa dhag soo maaha 2014kii ay galeen haddana waa ii soo laabteen oo ilka casi sheeka aan shuqul ku lahayn bay ii sheegeen wuxuu yiri waxba kugu ma dhacayaan shuqulna kuma laha showgaaga anaad already ii timid anaa goheerka ku siiyay abay baashal Axmed Rashiid garabkaygu istaagay showga historiga ah ee Nairobi iga dhacay ninkii ii suurtageliyo ahaa wixii aniga iga dambeeyay walaalayaal waxa bilowday fanaan kasta oo Nairobi aadayo in fanaaniinta kale ay qishsiyaan ama dadkuba ay la taliyaan ay dhahaan niyo hadaan Nairobi socotid nimanka ayaga ah joogay Axmed Rashiid raadso si uu ku protect gareeyo maxay noqotay marka Axmed Rashiid shaqadiisu waxay ahayd oo wadan
ka u joogay inuu amniga ka shaqeeyo ilmaha saqajaamada oo dadka ka dhiciyo waxay noqotay Axmed Rashiid fanaan kasta inuu Axmed Rashiid u tago oo yiraahdo walaalo yaa laga caawinaya marka oo laga ilaalinaya cid kale laga ilaalinayo wiilasha walaalaheenaya laga ilaalinaya cid kale ma aha okay haba ahaato fanaaniinta marka waxaa la isku ogaa marka fanaaniinta ayaga ay eeda ka tirsanayaan ama Cabdiilay u heeseen ay dhahayeen oo markaas ayagu xarash in loo haayo u maleeyo inay Axmed Rashiid ku dabagabadaan oo dhahnaa heesaan raba meeshan xarash laga haayaa caawi taas la isku ogaa oo aan kulligan ku ogeyn arrinta ayada ahayd sida la wada ogyahay way soo dhamaatay dhalinyaradii jabhadda ah say u badan yihiin wadankii aadid waxay aadeen jigjiga dhinaca oo Yurub uu ku maqan yahay Cabdi Fataax Jarmalna Canada uu galay inta kale iyo qayb dhowr baxday qayb baa hartay oo meesha hadda joogta waxa kamid ah wiilka video-ga soo dubay oo la wareysanayo hadda aan daawado oo magacaygu meesha soo galiyay aan leeyahay waa la joogay sheekadii marka waxay iska noqotay maadaama filimkii Olanlef iyo Cabdiilay uu soo xirmay oo Olanlef xarootay oo aaday ii sheekelinka shanaad fanaaniinta oo dhan sayfay dareemeen inaan wax dambe oo fanaan loo raacanayo sheekadaas oo iska soo dhamaatay dadkii heshiiyeen oo fanaan kasta uu arkay still in kasta ay cabsidi jirtay laakiin ayagii waxay mashruuc ka dhigteen wiilasha walaalahay ahaa in ay fanaanki imaanaya oo ayaga soo maro kilibkan waxaan u duubayaa video-ga aan daawaday wiilka waa la wareysanaya igaarka cad oo ilkaha cascas nin wariyaha wareysanayo wuxuu yiri BK yaa laga wareysanayay iyo qaabka showga loo kansalay wuxuu dhahay magaalada Nairobi dadka qaar ba meel ba u xiran qaar ba saboorada iyo fiisooyinka wixii dawladda laga dhameeyay u xiran qaarna waxa u xiran fanaaniinta imaanayso ayaa u xiran oo siyaasad noocaas ah jirto dhalinyaro is aruursatay oo dhahay oo Soomaaliyeed oo aan qabiilna lahayn oo isku dhafa ayaa jirto oo fanaan markuu imaanayo Nairobi inay soo maraan arrintaas waa been dhalinyaro is aruursatay oo Soomaali ka kooban oo qabiil kasta leh oo Nairobi fanaan Soomaaliyeed u fadhida oo ayaga la soo maraayo ma jirto waa only wiilasha ayaga ah oo isku familka ah taas been buu ka sheegay walaalkay maanta waa adduun birina waa aakhiro wuxuu yiri dhalinyaro Soomaaliyeed oo qabiil kasta leh ayaa jirta oo meeshan ay u xiran tahay xagga fanaan markuu imaanaya arrintaas waa arrintii soo kicisay wuxuu kale uu yiri farxiye kaba yaraa wadankan timid iyo dalmar iyo caqabaday la kulmeen wuxuu kale uu dhahay hadda ka hor baa Yurubgeey inta timid ayadoon heesin noqotay oo waan u diidnay wuxuu yiri BK wuxuu yiri markaan dhahnay maad nala kulantid wuxuu yiri BK aniga arrintayda idinkoo kala ma gashaan laba dawladood ba arrintayda ay qusaysaa Nairobina idinma daba fariisanaya inaan Soomaalida joogto u heeso marka waxaan soo xusuustay oo dhahay gabar baa hadda ka hor inta show in laga kansala iyo la isku khilaafnay oo kuwa ayada difaacay ee annagi isku khilaafnay baa loo tagay Yuusuf Xaaji markaasuu wuxuu yiri gabaraa show la rabaa in laga kansalo markaasuu yiri dhoocin xino foodleeyo fanaanada waxa rabtiin ka yeela okay walaalayaalow waxaa jira qofka bini aadanka waa inuu waxyaabo badan xeeriyo aniga waaga ayada oo showga laga kansalaayo Xasan Gantaal oo yar uu yaraa Xasan Gantaal hadduu kacay oo dheeraado weynaado waa wiil yar Xasan Gantaal ayaga uu ka tirsanaa inkastoo san ku jirin kuwii tooska ii soo weeraray laakiin dhalinyaradu ka tirsanaa uuna u heesi jiray I think inuu dhaantad u qaabilsanaa laakiin uu la socdo markay ii imaanayaan oo laygu meeraysanayo uu la socday 2019 ka hadda xamaran tagay show aan ku lahaa showgayga 2 bilood la xayeysiinay Xasan Gantaal waa kii iga daba yimid markuu iga daba yimid social media soo galgalay dhalinyaro xamar joogta video ka duuduubeen xamar lagaama xigo show waa dhigan kartaa kaba yara ku diidaysa camal iyo waxba la raba in la geliyo aniga marka anoo dumara oo gabar ah fitmada dumarnimo waa abuuri karay garbasaarka intaan tuurto waa dhihi karay beeno dhan intaan daldalo oo Xasan Gantaal ka dhigo nimankii waagi iga kansalay uu groupka uu ku jiray laakiin waxba iima geysan ani waaga waliba wiilka la yiraahdo Yurub iyo Aftax Jarmal aad bay igu dhawaayeen waxay dhigi jireen inaad haysto walaal anagu waa jecelnahay laakiin guddi baa jiro madax baan leenahay madaxdaas oo ku fasaxin anagu waxba kuma qaban karna laakiin abaayo wallahi farxiyo waa ku jecelahay kuma nicbin laakiin xaaladahan waxaan hadda ka qaban karnaa male ururkana waa ka tirsannahay marka 10 qofood ama 3 qofood ay ku soo weerarto 3 qof ama 4 qof oo ku naxariisata lama waayo marka meeninkaygu wuxuu yahay Xasan Gantaal
maadaama xamar uu iiga daba yimid suuqana aan ka cabsaday inuu ii geliyo farxiya xamar igu cunsuriyeynaysa intaan adeegsado cadiifadii 2014kii garbasaarka intaan tuurto xamar oo aan is oohisiiyo aan dhihi karay ninkaanu hadda koroo Nairobi show iga kansalay oo awood ii sheegtay iyo qabiil haddana xamar igu dhibaataynaya ma samaynin maxaan sameeyay Yurub Facebook inuu igu jira Yurub waan xiriirnaa qooyaca u taqaani reekeeye Yurub aan la xiriiray عفتح سفاريجنا منيابوليس أو نيروبي جوجان لحريري عفتح شرمل أو جوجا ماشي اللي يرادو كندا لحريري سلطان سيران لحريري حرير أحمد لحريري كاز النبي صلى الله عليه وسلم دعوي ويرو لا يالو إيمج كيجو كل عيارايا وحور ربع إنه ضدك يتصو أنتو شو يقدر بدك سديب مركان إرادو محد يقدر بدك سنيسة إنه ضدك علاط يتصو أو إيمج قلدان إفرحية حمر إيش يجانيسو علشان سمعت أيضا وان إلهنا إنا ويلكا ولالك أنت سوكله إن حمر أنا كحيجو إن تصنع مربين كمان يحيجو حمر وعاصمة الصومالية أساسا آمن سنة لكن مركا النقطة إن عذار إيو واحد جرادة كود السفين وكذا ذيذ مدة شرت مركا ولا لا ما صنعين حسب جنتال وأوجا وإيمت مركا دبواتان هشيني وأن قربها يسيسمو إلا يضيني لو يجلسوا هيصي مركا وحياة بدن ولا حيريات شرا مدة شرت مركا ولا لا يالو فرين بان halkan ka diraya mid waa dacwo dhalinyaradaas aniga oo matalaya dhammaan Soomaalida Kenya joogta especially Nairobi aanu u hadlaaya ayaan dacwo ka nahay hadaan nahay reer Soomaaliya especially reer Muqdisho fanaan dhan xaga eedig dhalinyarada Muqdisho ka imaatay ee Nairobi dhooban reer Nairobi dhan waa ogyihiin laakiin qof Nairobi jooga hadli kara ma jiro dhalinyarada Nairobi joogta ee Muqdisho ka timid ee xabada iyo qaraxa ka soo carartay Nairobi kuma joogan niyad sami cabsi ay ku joogan qof markay isku dhacaan ayaga ah waa ku xira ama adeerkaya wax aha loogu hanjabaa dhibaatadaas way jirtaa in ma aragta dadka Soomaaliyeed ee Nairobi waa qurbo waxay ku yihiin magangaliye u soo raadsadeen inay ayaga iyo dadka Soomaaliya ka yimid iyo wiilasheenan killinka ka yimid inay u sinaadaan way xaqu hadii aad Kenya aad baarta dhan ka deganto adii ilmaadeerada degan yihiin adayba ahayd inaad dadka soo dhaweyso oo reer Soomaaliya oo dhan aad hormuud u noqotid oo aad dhibaatada ka ilaalisid oo aad isu heshataan waxaan weydiinayaa walaalkay marka wiilka Cabdiraxmaan ee fiidiyowga la wareysanayo Cabdiraxmaan waxa tiri farxiye kaba yaraa timid dalmara yimid fanaaniin badan baa meeshan caqabad kala kulmay dhalinyaraan haddaan dhalinyaranahyna waxaan u qaabilsanahay fanaanka imaanayna wanaga na soo maro أبو معانا وإلهنا كقول داريا ولا الكيا تهاي الويل سوماليا تهاي وحن كويدينا أذيقا يا كوحل صار إن أذل قصامرو أحمد رشيد إنه فنان كمرو وأوكي صوت أمرا يبي تقانين أحمد رشيد عبسي أياك الله قباب الله مرابا أحمد رشيد عدك كما ورديه بفنانين عدك أحمد رشيد كما ورديه أياك الله ورديه أرجع ولا له هذا الله ورديه مي فهمتين أوكي walaalkay su'aalan ku weydiina adiga yaa ku igmaday yaasa adiga ku doortay fanaanki imaanayo Kenya Nairobi in uu idinka idin soo maro su'aashaas kama jawaabi kariyo maxaa ka tahay Nairobi adigu ma nin madaxa tahay ma ii sheeg ma business kala meesha ka socdo oo fanaaniinta waxa la weydiinaa taxi oo dawladda adigu tahay ma tihid fanaankaas wuxuu u baahan yahay oo kaliya waa inuu dawladda isku soo register gareeyaa Kenya inuu show ka dhigaayo wadanka dadka iska leh iyo أحمد رشيد أو صومالي ذا والوالن شو فنان وسيف ودريمه صومالي ذا هذا الدجال يبوك كدرين لهاين شوقة يهدي فنان كعد جار وراتسنيس وكعب سنة إنه أحمد رشيد وقرب كيس تاجنا أنت شو فنان كوباهيه فنان كمركا وحكو كلفاية أما كو قصباية إنه إذا كان صامره أبوه يجت شوال صلاة الله جربا وحكو صهري واجي شوقة هذه كنسليسين وحان waxaad igu tirahdeen farxiyo dad gumaysi ku jiraanna waana lagu qalday kalinkana dawladda kama jirtay kii ugu xumaayo gumaysi ugu xumaayo hadda galay marka gumaysi inaad noo soo raacdo adoo gabar walaashan oo Soomaaliyeed oo calankii buluuga ah naga dhaxeeyo oo Soomaalinimadii dhiig naga dhaxeeyo ayaan diidanahay oo calool xumaana idin haynaa fanaaniintiinan kalinka shanaad u heesayso waxaad ka cabanayseen walaalaheeyo waa idin jeclahay waxaad ka cabanayseen gumaysigu ahaa gumaysina waad naga badisaan oo xanuunkiisa idinka yaqaan idinkoo gumaysi xanuunkiisa yaqaan ilaahan idinku dhaariyay inaad Nairobi ku gumaysataan Soomaalida joogto hadduu fanaan yahay iyo hadduusan fanaan ahaynba oo Soomaaliya soo cararay oo magangalay soo doontay inaad ku gumaysataan ma xaq baa
adoo gumaysi kacarro gumaysi wuxuu yahay yaqaan ina adigu walaalka Soomaaliyeed si gumaysatid ma xaq ma ah waa qalad waxa ku soo haray oo aan fariin u diraya for example aniga waxaan aaminsanahay Somaliland aan ka laalaadno oo aan maali Ilaahay kana dhaleecaynayno iyo Muqdisho labadaba wax aan ka suurtagelin ayaa Kenya Soomaalida joogta ka suurtagala oo ka dhaco aniga maanta haddii aan xamar tago xamaran ku dhasho intaan ku soo la ekaado waa meeshan ku faano Soomaa dawladana right now maanta kulli waxa meesha wax ka ah haddii taliye ciidan uu yahay kulli waa aniga haybtayda Soomaa illa idinka qabiil idinka kari waayay فنان حرش أهايو أما هكيم هذا Somaliland أما هكيم هذا كلن كي هدي أن فنان حرش أهايو أنا حمر شوق إنتو يمادو أنا بحو أنا عفتح شاوي أطقا أمان صادقتون أطقون أنكو إرادون نكاس إن الشوق إيجا كان سشان ربع أنا حرش أهايو نا كده فكارينا ليها بح وهذا بدرنت هاي وحي ذيك ذيك كده لكن لو ما كان صلاة فنان Soomaaliyeed مقدشة إمادي سأصل لها يا وعكوسه هرجيسة ما تهدان أنا قلت له dadka inta xun baa ku badan dad baa isaga kici kara dad baa fikir qaldan iga haysan kara hadii show intaan ka dhagsado Hargeysa la igu dhaho qolooyinta is abaabulaan inta qaswadeennada ah ay u tagaan dawladda dhahan farxiye ka bayr in showga laga kansalo last minute aan rabnaa oo tii dheerad lagu dhigo dad waxa la helayaa ii soo istaaga oo dhaho saani gobonnimo ma aha waa gabar waana fanaanad wax laga kansalaayo malaha laakiin nasiib darro dhalinyarada walaalahay ah ee Nairobi joogto waxa ay waxaanu dhibaato u sameynayaan waa duud waayelay ku dangiigan duudka waayelay ku dangiigan waa idin si fasiraya xayowga hadii aad fahmaynina waxay haystaan garab ilma adeeradooda madax ka ah Kenya way u tagayaan meeshaas waxaas meeshaas in la kansalaan rabnaa leeyna hore looga kansalaa madaxda Kenya ee Soomaalida ah ee walaalaheen ah ee Kenya madaxda ka ah anigu magacyadooda ma wada aqaano hebel xaajigaas oo hadda ka hor u tagay markii showga laga kansalay ka bacdi oo afkiisa iga yiri ana ka kansalay dagaal dhacayaan leeyahay yiri ninkaas oo isli haysto adeerkaas ama abtigaas aan ka xusuustaa inta kale magacyadooda ma aqaano haday wasiirro yihiin haday xildhibaan yihiin dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho ama Somaliland ama Puntland meel kasta ka yimaada ama koonfur oo dhan ka yimaada ee Nairobi degan ee Nairobi jooga xil baa idin ka saaran xil ayaa idin ka saaran gumaysi dadban oo qaab darana meesha ka socdo haddaan idin xusuusiyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo reer Muqdisho ah ayaa waxay dhiganayeen sanad guura nabad iyo nolol ah maxaa samayseen ilaahan idinku dhaariyay inta tooreeyay la gasheen aad nabad iyo nolol anaga wasno fash dadku ma ilaawin boogna inaan soo faarfaaro ma rabo wiilashan walaalahay ah waa wiilal umada Soomaaliyeed qabiilada Soomaaliyeed qabiil kamida ay yihiin qabiilka ay wiilashaas yihiin waa dadka kilinka shanaad ka soo jeeda 15 maray wax yihiin walaalahay oo habriyaalahay dhaloona dhana ah abtiyaashay hooyaday ku hooyaha ah curadka hooyadayba ah ay idin ma quuro xumaan idin ma quuro idin mana caynaayo laakiin runtu waa laga maraystaan annagu waxaan ku mahmaahnaa haddaan nahay ii sheeg dadka koonfurdega oo waliba xayowga ah run aan la sheegin maahane rati dameerka raad qurxoon run aan la sheegin maahane rati dameerka raad qurxoon may maqlaysaan waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan taas uga baxaya tukala iyo daba taale wiilashaas walaalaheen ah mar dacwaan aan ka nahay aanoo matalaayo Soomaalida Kenya joogto oo dhan mar dacwaan ka nahay oo madaxda Kenya joogto ee Soomaaliya oo dhan meesha u joogto haday dhibaato ku dhacdo lambar 1 wiilashaas dacwo looga yahay in amaan laga helo ninka la yiraahdo Axmed Rashiid aniga intuu ii saaran yahay halkaas because waa ninka kali aan habeenka si fiican ma iska raaxaysan kartaa la igu dhahay ninku iman kara ma lahani waxa Axmed Rashiid fanaaniinta u maraana wiilasha walaalaheen yaryar ee dheer ee cadcad ee ilkaha cascas waay marka walaalow markaan runta ku sheego kilika shanaada ka timid Nairobi magangaliyaad u timid waagi hore hadda kilika waa ku shidan yahay magangaliyaad u timideen dadka xamar ka yimid ama Somaliland ama meeshay rabaan ka yimaadaan meesha qurbana caswaayo ayaga naftirkooda qaxooti bay ku yihiin marka waxa aad dheertiin oo kaliya waa in ilma adeeradin meesha madax ka yihiin qabiilkiina u badan yahay marka soo ceeb ma ahan meeshaan iscaawin lahayn inaan isguumeysano soo ceeb ma okay arintaas laga waantooba dhalinyaradaasna si wada jir ah loo wada dacweeyo waan ka baxaya waxaan ka rabaa inaan wax yar ka hadlo arinta BK iyo reer Muqdisho
وحيران ربا إن الريم حسوسية وحير أدون كان ولا جت جايا ما أنت وأدون برينا وآخره نيك اللي هذا بيكي سيدا ضدك أنت عقلك أو صاحبك أيوجيهن فيسبوك بهذا كور تلقوا فرطة وحيل ربا لقى شيء أوكي وعنصرية اللي يري حمرنا حبنا كحيجا هورا بيكي واكي هذا كور هذلو يري حتى فيسبوك مليه لكن تبكي صومالي ده ولا قليه من اللي قليه هذا مركز الشوق اللي لقى كان صلي بيكي مركز ما حد عاي بيكي لامر الشوق اللي لقى كان صلي ويلش هساك كان صلي مركز اللي كان صلينا فيسبوك ورنو إسقاط صدي دقشوا صومالي محيط هذا مدينك كوجلية يا كساك كوجيرا كي حنون بدن كساك كوجيرا هذا حنون بدن محاط عاي مركو بيكي تجي صومالي لان إنه له مقدسه برتاد هيك شوكته أنت كله هل كود الدولار هيك بدن هذا الكاس هذا الكل مديها اللي يجي مرك هذا حسوسته إذا كويرته أنا دور مر أيام وحنك هذا الرمها صومالي لان وحيابها كرعو فنانين تحديها جيسكم مقدسه هذا كور لوجه هذا كان وهذا رئيس صومالي لان أنت صح أنت عقلك وصاحبك صولة إيه وذا صارين أنت قصودين ماذا أنا وحي عينا ينسمى الضم أنا بكور قلين أما أنا رئيس صومالي فكس في عن صارين أما أنا علوش وحي قلان يوحي قدان أنا بارين أنت حمان تودي بكورة إيه بحي عينا إيه قذادو أنت يقول أيام عقدة يركا قاضي وأحناق وحارضت كان وعنصريين واسكت أدعيه منه because مالك استيسوا عيان مالين بقى أنا كرمال ملك من يابلس كتشوجا هبي خليفة صارقني هذا اللي ير أو كروليسي أها أيام ده فرحيب هدان تور آدين إنهم كراعوا أنت آدنا أنت هرجيس هنا الله هو يجي فنك وايا والله ده لكن أنا ما أجي إنه يجين هو يجي فنك مو سعتي متى جاي هرجيس ولا لا يروح إذا تعلى لك إذا مصر صعود الدوك أنا سكورة إيه لو أنا إيجا قصارسان مربي شغل كان صلنا كمان بيحكروا ولا تشوقي أنت يا ريد وطي هدنا حناقي عقد الله يوقاضي أنا نيروبي تشوق وحن إسأرقنا إجلان صالح ويجا ورئيسة أرنتا واتان سي واضح uga hadlan dhahay walaalahay waa kululeysanayeen xogaayar way kuruleeyeen ana waa kululeysanay BK hadalkii aniga iga soo baxay iyo hadalkiisu waa isku mid qofka walaalkaaya marka aad ku digato marka aad ma aragtay aad tiraahdo oo kugu macdahay oo qasaarana uu gaari dad walaalihiis oo Soomaaliyeena ay xumeeyeen waxa dhan uu israacinaya muqdishona gaar uu leeyahay hay dhaafto because meesha ugu badan ee looga diganay reer muqdisho ahaayeen reer muqdisho oo dhanna ma ahanay عيد كستا أما سوماليلاند أما بوتلاند أما مقدسو أما نيروبي مال كستا سوماليدو جوجتو أنت حن على أركا because way أفديرين أنت قصورة ذي نضع أنت ضدك كلا جيسة أنت قشنك أهاكو بدن مرك أنت قشنك أهيدو أركي ونا حناقي وأنا بالآذن الملائك معه مرك هذا الكبيك يحول لمدي هاي أنا جو بهر جيسة متجايدي الله محا كدم بي إن عن ضدك ولا عليه هاي عن مو تجايو مرة إن عن صفي عن أبرتو أصحاب بدنا كلها بشارع علي بانطي سجل مصطفى حسن نوري قبل بدنا يكمدين إيه أصحاب بدنا ويل الله فيسبوك يقول لنا أنت بدنا يسوي ما عرفت يقنع عيسى هذا ولا ما كنا نبيع فرحية لصعوا مركا عرفت كإني النظيفين وأنا علن كوده هو ذي because أقونا أنا مركا هرقولها ينبانو يشي علن كوده وأنا هو ذا وهالشيء ذات كهل كان كتير كي يسوق قرايو إن أرجيس ربطة أنا تكتو أما أنا أرجيس كسر هستاربطة هرت ميدا يدين شيء إيجار رالي هذا قف قصودينا يسوي إذا جيسته ماذا إذا شيء هرت أنا فن هدي اللي هذا فنان كوجو إسكور هذا بدن باناهي ما لا إسكور يقولين ملها هرجيسة كوسو هرتي هدان ربع هرجيسة وكهيسة هدان ربع كم هيسة هوا بودات هدان ربع أنت تجان فكيش وتجان إسكدجة فنك أشياء جيسان بديك واحد الله أنا وجبان فنك كأهي بكو شرف ملها فنك صومالي وشرف ملها وحكوسو هري فنانين تماشى بروبلم كوجي مدن بايجا مسؤولك أنيجا بقول دور بعد دباتين يقول عين ومشوا يلا يجا كان سلام اللي دباتي أنا فيسبوك قايلنا وليجي وأركيسين وليجي المعركتين هالفنان أما أنكلوس أهم أما أيان إسقون فنان ما يقول اللي فرحية محصل الله يلا هاي مشلو فنان كاستمر كل دباتي فنانين تكلم باركين يجلين سيد إني عدو كيهن يكون فرحية عمل فنانين الصوماليات هذا فن كان رجك الربطان أنا أقول رجك مرة بيه ما نظري هذا فن كان رجك الربطان اسكت دوبنادا فنان كستنا ماشو تقشك أو يوحو كلا كلمة فنان كلا قشكي ساسيو بيك يوحن فيلايا مركو هذا نيروبي تجي أحمد رشيد موسى مرين أحمد رشيد وحلوجا قبضة وويرشة ولا لهن ما في هذا عمل ورق مايو عد كلا أو عدوة ولا جاء إلى لنا يكين يمشرتو ويرشة ولا لهن عد يدوران يسجد لجا
وفنانين أقارصة وح أحمد رشيد الله مر بينتك وجوين وأنويل شيء كبد بادو مركب أحمد رشيد نو حنفلا يا أحمد نيكل إلى بيكي نو أحمد رشيد مرين وحد عي هذا وين عين وحنقول شيء جاي الريم مقدشو أرنت بيكي مقدشو ماشي هذا يجت شوكته واتايدي وكلي يهرجيسو ما صعدوا مركب لجو جارسيو لجا بديو لجو جارسيو أنا واحده مركب dadka yaan la kala geyn Soomaalida yaan la isku dirin wiilasha walaalaheen ahna wixii ehela ee ma aragtay garan kara ee qaban kara ee fahmi kara inay naga qabtaan rabnaa dawladda Kenya dadka noogu jiro ee ma aragtay madaxda ahna waa idin bariya fariintayda hal gaarsiyo wiilashaas shacab ahaan iyo fanaaniinta Soomaaliyeed waa inay amaan ballaaran ka helaan hadii aysan sameynaynin Soomahan hal mid fanaaniintan kula talinaya Kenya haddaadan wiilasha yar yar u naagaynaynin oo aadan ayaga aadan dhahayn biliis Kenya ma ka heesi karaa walaalow ha isku tagin haddii kale u gooya Kenya meel kala ka badan meel laga heesaa ka badan yuusan fanaan tagin haddii kale maxaa dhacay in ayaga u naagayso aniga iyo BK isku mid aan ahayn anigu waxaan iri idin lama kulmaayo BK wuxuu yiri idin ma aqaano maxaa dhacay in fanaanka la dhibaateeyo soo ma okay marka labadii ka u door leh inaad ku jirtaan bahdilkaas oo aad marka Nairobi tagaysaan wiilasha yar walaalaheen dhuudhuubana dheer cad eelka cascas inaad ma aragtay ayaga aad u naagaysaan oo aad dhahdaan in iga raali ah ama ay ma aragtay ay ku qasaan hadaad raali ka tahayna Axmed Rashiid aad maray Axmed Rashiid ku ooyee shoog waa dhigay hadii kalena dadnimo isticmaalo waxaad kansalaysiin kansala aniga idin ma naagaynaayo dhah iskuna duubnaado fanaan marka la xumeeyo gees uga soo wada jeesta wiilasha walaalahay ahna su'aashi aan weydiiyay ka soo jawaabaan yaa idin doortay fanaanka Nairobi imaanaya inuu idinka idin soo maro dawlad ma tihiin oo wadanka dawladda iska lahayd iyo Kenyaan ma tihiin hatta Soomaalida dawladda ku jirtay ma tihiin askar ma tihiin ilaaha idin ku dhaariyay waxaas oo ma aragtay cuqdad ah iyo waxaas aad dad ku beeraysan sheekan soo xusuustay wiilba hadda koor wuxuu ugu yiri Nairobi anoo jooga ayagoo dhibaaya dhalinyarada reer Muqdisho dhalinyarada Soomaaliya ayagoo dhibaaya hadda koor wiil wuxuu yiri niyo maalin kasta waan xirtaan oo adeerkaya askari barayd noogu faantaan waan dhibaataysan inaad xamar iyo Soomaaliya tagtaan rajo kama qabtiin miya oo aga maxaa iga jira ay dhaheen wiilashi saalaha laba kamid oo hadalka tiri waxaan maqlay inay ta soo tahriibeen Mexico San Diego meelahan ay ku xirnaan jireen oo dadkii la celiyay ahaayeen toos xamar laga dajiyay asay iska baroorteen xamar maad imaanaysaa ma waliga is iriba xamar maad imaanaysaa miyaan is iri haye adduunku meel ma jiro gacan la barkan doono Ilaahay ba ogay Soomaalidu dhahan marka nin shukaansaayaan cid loo martin doono lama oga Kenyadaas aad dadka ka xigsanaysan ee aad dadka walaalihiina gumaysi idinka naga yaqaan naga badiye dadka walaalihiina gumaysanaysiin oo aad xumeynaysiin shacab iyo fanaan waxay doonaan ahaadaane oo aad ka xigsanaysan Kenya anytime balaaya ka dhici kartaa oo Soomaaliya dhan ma naqaan la dhihi karaa asaad xamar isku shubi kartiin iyo Somaliland iyo meel kasta Soomaaliya joogto marka godob ha gelinina xarash dadka kala dhex dhiginina wiilasha walaalahay ah ee reer walaalkay ah curadka hooyaday ayaan wali iyo abtiyaasha iyo kaasanadayda aan wali ku xeerinaa reer walaalkayo Soomaalida Kenya joogta ee walaalihiina ee qurbana aska joogta ee Muqdisho ka timid especially Muqdisho ka timid wiilasha yar yar aad ugu hanjabaysan waa ku xiraa iyo ku yeela waa is ogtihiin arqaf Kenya jooga sax waa soo qor waa cabsaha hore laga xiraa dadka Kenya jooga hadda sax ma ii soo qori karaan abursanaan baa ka jirta waa loo sheeganayaa meesha marka walaalayaal waxaas waa ceeb waxaas waa Soomaali kala geys cid la mudan doonana Ilaahay baa og waa idin baryaaya wiilasha walaalahay ah waa idin nasteexaynaya waxa ka waantooba oo iska daaya waana idinka dacwoonaynaa inta daawanaysa iyo intii u leh inay la xiriirto madaxda Kenya wiilasha walaalaheena dadka laga qabto BKna reer Muqdisho ka calool fayoobaada ninka aniga waxaan iriyo kale u buuyiri Sooma waana gaarsiiseen inta xunaa gaarsiisay waa la gaarsiiyay qofka xumaan lama gaarsiiyo mideeda kale adigu hadii hadda lagu yiraahdo farxiyo way ku nacab tahay oo adigu aad daacad ka tahay oo adiga aad jeceshay daacad ka tahay ma isoo jiidanay ma soo ifogeynay BK cunsuri waaya leeru idin nacab yahay leeyahay BK waa fanaan fankiisana aad u jeceshiin fanaan kasto Muqdisho ka soo jeeda BK ka jeceshiin marka BK ma gacaltooya la tusaa oo la soo jiidana ma soo wala fogeynaa oo dhibaatadiisa lagu diganaa dad waaweynatin aqligan cidiha isaga gurnana loo masin waxa ku soo haray wiilasha walaalahay mid kale ugu daraaya ilaahan idin ku dhaariyay suldaan Seerar iyo Xariir Axmed waa walaaladin ilma adeeradin oo kala shanaad ka soo jeeday ma ku xeerin weysan sidii loo soo dhaweeyay
بيكي مركا انت دبا دغتين اد مر كنسشين مر لباد كنسشين سلطان سيرار iyo ma ku xeerin weydeen ninka la yiraahdo xariir axmed ma ku xeerin weydeen waxba ma xeerinaysan Soomaa shaqul maafiyo anagu Nairobi aan joognaa maafiya na isbaara noo talamiya walaalayaal ilaahay ka cabsada maanta waa adduun birin waa aakhir waran fan danka mali anytime any minute aan ka baxaya dhowr iyo 10 sano soo heesooya adduunka meelan tagina malaha marka waa idin salaamaya inta samaha jecel kor Allah ka dhigo ummadda Soomaaliyeed boggeeda burcad Allah isu mariyo dadka isku diraayana ilaahay dadka ka qabto oo qasoodeynada ah waa idin salaamaya waa idin jeclahay bye bye